su'aal kale waxay ku saabsan tahay ma la soomi karaa oo xisaab ma lagu soomi karaa? jawaabteedu waxay tahay maya, xisaab laguma soomi karo. waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xukunkii wuxuu ku xidhay aragtida ayuu ku xidhay. waxaanuu yidhi innaa ummatun ummiyatun laa naktub walaa naxsub, waxaanu nahay ummad ummi ah, aan waxna qorin waxna xisaabin sida haalibka ah, sida tirada badan leh ee ummaddu u badan tahay. waxna ma qorno waxna markaa ma xisaabinno. marka fasuumuu liru'yatii wa aftiruu liru'yatii, yacni bisha marka araggiisana ku sooma, aragtideedana ku afura. sidaas aawadeed yacni xisaab in lagu soomaa waxay khilaafsan tahay yacni nusuusta iyo adilada iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam bay khilaafsan tahay. sidaas aawoodee ahlucilmigu waxay dhahan waa bidco, waxay noqonaysaa bidco ayay noqonaysa. marka xisaab laguma soomi karo, lagumana afuri karo. waxa markaa lagu soomaya lagu afuraya waxay noqonaysaa aragti ama soddonkoo dhammaystirma labadaa mid ahaan ayay noqonaysa.